بسم الله. الحمد لله. الصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، إلهي سبحانه وتعالى دمانتين بهين ودبادباديو الدنيا آخرة. أن قرآنك إلهي سبحانه وتعالى دورا يضوض كمدة وحاونا قلت المامي dhibaatooyinka dunida oo ay ka mid yihiin kaydka gaalada iyo wixii la halmaaloo dhan wax lagaga badbaadayo oo qofka muslimka ahi noloshiisu uu wanaageeda ku gaadhayo. fi suurati ali cimraan saddex aayadood oo ka mid ah ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala masaladaasi ku tilmaamaya. ta koowaad, ilaahay subxaanahu wa tacaala intuu ka warramay munaafiqiintii iyo dhibtii ay muslimiintu ku hayeen ayaa rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamayaa in tasbiruu watattaquu laa yadurukum kayduhum shay-a. ilaahay wuxuu leeyay subxaanahu wa tacaala wain tasbiruu, haddaad sabirtaan oo adkaysataan oo sabirkaasi uu idinla socdo inaad ilaahay cabsidiisa laasimtaan, waa laba shay oo aada u qaaliya shareecada islaamiga. meelo badanna qur-aanka wada socda, sida qur-aanka aqiimu salaata wa aatu zakaad u aragtaad meelo badan ku arki doontaa oo sabirkiiyo isku xidhan yihiin alla ka cabsigu. ilaahay markaa wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala, haddaad rabtaan salaamada iyo nabadgelyo inaad heshaan, sharka iyo kaydka gaalada iyo fujaarta ka badbaadaan, munaafiqiinta iyo dhagartooda ka guulaysataan, ilahay wuxuu leeyay wain tasbiruu watattaquu laa yadurukum kayduhum shay-a. wax allaaliya waxay idin xadhig mareegayaan waxba idinma yeelayso, waayo ina allaha bimaa yacmaluuna muxiit. ilaahay baa subxaanahu wa tacaala ah ku og oo koobay wax allaaliya waxay samaynayaan. mar kale ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa madadka ilaahay ama kaalmada ilaahay in lagu helo bisabri wataqwa. balaa in tasbiruu watattaquu waya'tuukum min fawrihim hada yumdidkum rabbukum b5,000 min almalaa'ikati musawimiin. ilaahay reer beder wuxuu u tilmaamayay haddii aa ilaahay ka cabsataan cabsi oo sabirtaan, labadaa shay haddaa la wada timaadaan, inuu qofku sabro oo adkaysto iyo inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala cabsidiisa ku dadaalo, haddaad labadaa la timaadaan baa rabbi leeyahay subxaanahu wa tacaala ilaahay madadkiisaa helaysaan, hiilka ilaahay iyo madadkiisaa helaysaan. mar kale isla suuradda gudaheeda ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala latublawunna fii amwaalikum wa anfusikum walatasmacunna min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wa min aladiina ashrakuu adan kahiira wain tasbiruu watattaquu faina dalika min casmi lumuur. ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala waxaa laydinku jarribi doonaa oo laydinku itixaami doonaa, xoolihiinna iyo naftiinnaba waa laydinku itixaamayaa, dhib baa idinsoo haleeli doona. wala tasmacunna, waa ka maqli doontaan oo ka maqli doontaan baa ilaahay leeyahy kuwii idinka hortiin kitaabka la siiyey yuhuud iyo nasaaro ahaa iyo kuwa mushrikiinta ahba dhib tiro badan baa ka maqli doontaan. waa taa maanta dunida muslimka haysata ee la laynayo, ee la boobayo, ee haddana la maagayo, la ceebaynayo, ee waa terroristi, waa kan la leeyahay gaaloo dham isugu tegay. ilaahay laakiin wuxuu leeyay wain tasbiruu watattaquu faina dalika min casmi lumuur. haddaad sabirtaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsataan, kaasi waa arrinka la goosto ee aan laga labalabayn baa ilaahay leeyay. waa arrinta u baahan qof kastoo muslimi inuu ku dadaalo. aayadda ugu dambaysa fi suurati ali cimraan iyana ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala falaaxa iyo guusha inay gaadhaysaan. yaa ayuha aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu waraabituu wattaquu allaha lacalakum tuflixuun. ilaahay wuxuu leeyahy kuwa iimaanka laga helayow sabra oo la sabir dhigta gaalada oo ribaad sameeya oo dhufayska ugu jira
واتقوا الله ألك عبصدا لعلكم تفلحون بإلهي إليه سبحانه وتعالى. هدين ربنا مركا إن إلهي نوهي لي دنيا آخرة وقول استينا إنه نقنه. وكان ربي سبحانه وتعالى تلمامي في قصة يوسف مركي النبي يوسف يولالكي أي دبت بدن صومرين أخيرا ولا الذي أي كل من أي دهدين ماذا يوسف أو يري يوسف بانهي إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. عدي إلهي سبحانه وتعالى كعب سطه التقوى التماده. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ومن يتق الله يجعل له إلهي وحو ينوت المامية وانت آيات تربضا با إلهي وحو قلت المامية ألا كعبسك هداد لازمتان صبرنا ويدن كجرو إذن دق يا أهين إداد أتكيسنا يا صبر يا آتهين إن إلهي سبحانه وتعالى نولشنا الدنيا تآخر بيساقو يدين فريو سادر أدد با إلهي لي فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أيها الأحبة ونوحي النبي موسى وكل دردار ما يتلكي مركا إلهدين وذينا من قبل ما وأنا لدبي ودبت وأنا هيستين تاند نوي من يمركا نوتي مبا مشكلة دواجرتي وحموسى وجواب يستعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. إلهي قرقار ويديستا والرب كالميستا والصبر ملكن إلهي وحد حلسين دونا وعربتي سدنبله كوا لك عبصد أبو النبي موسى وتلمام. أيها الأحبة أفول بدبتو ميل بيك هايساتا أدون كان وحي نوشوك نابا إن دالينا يتحامو halkani ma halkii lagu raaxaysanayay halkani waa halkii la isku itixaamayay adigoo aan ogeyn baa lagu keenay cid kulama tashan markaad dalanaysay hadhowna adigoo aan ogeyn baa laga kaxaynay cid ku weydiin mayso war imaka ma tagaysaa mise waad sii joogaysaa in yar baa joogaysaa baa lagu yiri intaana waxaad u joogtaa in lagu itixaamo ee shaqo kale uma joogtid. imtixaankana waxa ugu weyn ee lagu itixaamaya ilaahay inaad raacayso ka dambaynayso caabudayso iyo inaad dhinac marayso. ilaahay markaa wuxuu leeyahay dhibaato kasta oo idinku timaada ama gaalaca idinkaga timaada ha noqoto ama xoolaha iyo anfuskoo dhib idinka soo gaadha ha noqoto waxay doonto ha noqotee haddaan labadaa shay laasimtaan baa ilaahay leeyahay ay mashkila ku haysata haddaad ku waajahdo inaad jazac la imanin inaad argagixin إليك عني سيدي سلامتي تريو كلا إن أنا كوجو دعين صبرتو كيساتو كلا بعدنا وياهي الباب كأتفرج ككرادين سنة وإلهي النقدان وعد كلا نقون الباب كأتربطه وهي بيده الملك وهو على كل شيء قدير آخر يا الدون بإلهي كعنتي سيكوشرا وإن لنا للآخرة والأولى هدين لبدا شيء مركا إنه لازمنه oo inaynu adkaysano sabirno iyo inay tahay inoo raacdo ilaahay cabsidiisu. quraanka ilaahay wuxuu inoogu sheegay faraj adduun iyo tamkiin iyo falaax iyo wax kastoo aynu u baahanay inaynu helayno. sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.